السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا مركورة ميل والبود يقدر وليسان يسي والبود يمغليسان ومقال يركوبان وندون يو كود الاستاغو أرمي يقدم بيي وحال لغا في الكرايو أرمها لاسعانود يقبل كسول ساكس وحنا مدي حيل هورانيga xaggayga ka ahayd ayaan idin la wadaagay runtii qoraal yar oo kooban oo markaa ku salaysan xoog markaa ay soo gaarayay waxaan soo qoray laasaanad maanta ayay agta saartay wadadii ay isaga dulqaadi lahaayeen cadawga waxaan kaloo intaa ku daray waxa laasaanad ku xigi doona Borambe iyo Djibouti dadka qayb badan oo kamid ma aysan fahmin qoraalka waxaan ka waday waxaan markaa hadda balaan dul istaago inkastoo xogtaasi sida hadda aan u hayo iyo hadda waxaan ka arko iyo wixii hore saaka ka hayay ay kala duwanaayeen laakiin hadda waxa idin sheegaya in hadda xogaha soo gaaraya ugu dambeeyay sheegayaan in odayaasha iyo isimada iyo garaadada Resol iyo Sanaag iyo Cayn ay saameyn doonaan golo weyn oo markaas lagu xoreyn doono Sool iyo Sanaag iyo Cayn loogana dulqaadi doono ciidamada ka soo duulay Hargeysa ee goboladaasi ka geysanaya xasuuqa ba'an waxa maanta kaliya soo sheegaya in halkaas lagu laayay ilaa iyo 10 qof oo dhaawaca geerida ay jirto ilaa ay hadda hadlayana ay shacabku banaanka taagan yihiin oo ay dhagax tuurayaan oo xataa ay xabad ridayaan xilli korontadii internetkiina laga jaray isla markaasna ay da'ayaan roobab runtii aad u culusna ay da'ayaan ay wali banaanka taagan yihiin ayay xoog u sheegayaan golahaas in la sameeyo waa arrin weyn oo wax ka bedeli karta runtii rabitaanka shacabkaasi ay doonayaan waxaana muuqata markaani in ay garaadada iyo isimada deegaankaasi ay u istaageen sida isaga dulqaadi lahaayeen ciidamadaasi gumaysiga casriyeysan ku haya deegaamadaasi golahan wuxuu noqon doono ayaa laga dhaxarki karayaa sida ay wax u noqon karayaan cidda hogaaminaysa sida ay dhaqaale u helaan sida ay wax u sameeyaan baa laga cabir qaadan doonaa runtii sida ay wax u sameyn karayaan hadba waxay ku xiran tahay dadka ay magacaabaan iyo shaqada ay qabtaan ayay ku xiran tahay meesha ay gaaraan day si fiican uga fakiraan dad wanaagsan isu keenaan aqaala badan arursadaan dad ay ka dhab tahay xoreynta deegaamada sida ay meesha isugu keenaan waa xaqiiqo la xoreyn karayo Sool iyo Sanaag iyo Cayn runtii maanta ma aysan helinin garab istaagii ay ummadda Soomaaliyeed ay xaq ugu lahaayeen waxay ahaayeen dadkii xorriyadda Soomaaliya keenay waxay ahaayeen dad ku suntan Soomaalinimo waxay ahaayeen dad udub dhaxaad u ah Soomaalinimada iyo calanka buluuga waa musiibo maanta inaynu ku daawano oo aanan qayb ka noqonin oo aan halgankooda aanan taageerinin oo aan ku daawano in lagu laayo maatooda caruurtooda iyo waxgaradkooda Soomaalida oo dhan maanta ay ku daawato cid ka hadlaysa ma jirto dhinacan Muuse Cagjar baa ka jira kama hadlayo xaq Ismaaciil Cumar Geela ka jira kama hadlayo maanta waxa hadlay Xasan Sheekh Maxamuud sheeganaya inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda oo 24 daqiiqo hadlayay hal marna afkiisa ma uu soo qaban waxa la sacaanood ka socdaan ka xuma waa marka arrin musiibo ah oo muujinaysa in garabkooda maanta laga baxay xasan ilaahay maadiya in ayagu maanta noqdeen kuwa aan cidna u baahan oo tashaday oo u istaagay in dalkooda iyo deegaankooda xoreeyaan in garaadadii dhowr 12 ka hay lahaayeen beeshaasi dhulbaxante ay maanta hal fikir ay ka midaysiin oo ah in ciidamada Soomaaliland ka baxaan dhamaan Sool iyo Sanaag iyo Cayn wada laabtaan meesha ay ka yimaadeen waa ilaahay mahadis waxaan arrintaasi kale runtii kulaylka iyo dhibaatada loo geystay dadkaasi ayaa keenay waxaan rabaa marka inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego aynu taageerno hal garab istaago ma aha maalin aynu Resol iyo Sanaag iyo Cayn aynu ka hari karno maanta ma aha ninka ka hariya asaga u taala waxaan kala fariin hore khaas inaan u diro dadka degan Awdal iyo dadka degan Djibouti waa qayb yar oo laga jaray Awdal ree Awdal dhibaatada lagu hayo dadkan dhibaato la mid ah ay hore u soo mareen haddana waa la haystaa waa inay ayaguna qayb ka noqdaan kuwa qurbaha jooga xoreynta Sool iyo Sanaag iyo Cayn si berri ayagana looga xoreeyo Awdal labo waxay u dhaxaysaa cadow ama laba gubaysay u dhaxaysaa mid Ismaaciil Cumar Geele midna waa Muuse Cagjar waa in marka ummadda ayaguna ay u istaagaan waa community xoog badan oo qurbaha jooga waa inay u istaagaan inay garab istaagaan Sool iyo Sanaag iyo Cayn ka mid noqdaan xubnaha meesha ka shaqeynaya dhaqaalaha la aruurin doona qayb ka noqdaan dhiigooda u huraan si ayna bir loo garab istaago waxa ay muuqata runtii in kacdoonka ka bilaabmay meesha loo yaqaan Laascaanood oo ilaa Djibouti u socon doono wayna isku xiran yihiin Laascaanood dhibaatada haysata ilaa Djibouti bay ka soo bilaabanaysaa Ismaaciil Cumar Geela Djibouti ka soo sameynaya maalin horaan ka warramo waa in marka maanta aynu garab istaagno lagana shaqeeyo sidii loo tuuri lahaa
qadiyad walba oo ka shaqeynaysa in ummadda la kala qaybiyo waa dhamaadkii kala qaybinta jamhuuriyadda iyo ummadda Soomaaliyeedba cid walba marka doonaysa in ummadda Soomaaliyeed isku hayo waa inay mashruucan qayb ka noqoto waa inay nala garab istaagaan sidii loo xoreyn lahaa Sooli Sanagi Cayn markaysan waa arrin weyn cid walba oo ka seexata waxa ka badan dadka shacabka ee Soomaaliyeed taageeraya ka badan dadka Somali state degan ee farada badan ee ummadda Soomaaliyeed ee gumannimada iyo Soomaalinimada caanka ayaguna ku ah inay garab istaagaan Sooli Sanagi Cayn dadka shacabka ah ee Puntland iyo dhulka ay dhan degan ee maxaa la yiraahdaa shacabka ah ee gumannimada iyo Soomaalinimada caanka ku ana ayaguna waa inay qayb ka noqdaan hadduu dani diiday in ayagu raacaan haddii maxaa la yiraahdaa ina diyaano uu siyaasad ka dhex raadiyay in ayagu raacaan shacabkan uu la hadlayo uu siyaasi lama hadlayo siyaasi Soomaali waa isnaqaana marka dadka shacabka ay ka qayb qaataan halkan halkaas ka socda ninkii xoolo keeni kara ninkii qaylin kara ninkii xoolo keeni kara ninkii qori qaadan kara waa in gumaysiga dadka Soomaaliyeed ee xoogga ay Soomaali kale ku haysato iyo qabayl kale in laga qayb qaataa qaabka loo xoreyn lahaa intaas aan ku soo koobiyaa wixii kale oo analysis ah waxaynu ku samaynaynaa markii guddiga la sameeyo sida uu jaan qaado halka uu ka bilowmo awoodiisa iyo dhaqaalihiisa markaasaynu analysis deep ah ku samaynaynaa Sooli Sanagi Cayn waxaan leeyahay maanta maalin idinkaga dhowdahay ma jirto inaad xorowdaan noqdaan maamul gooni u taagan maanta maalin idinkaga dhow ma jirto dhimashadii ka dambaysaa xorniyadu meel lama xoreeyo ilaa iyo dhig aan loo daadinin cid walba oo meesha ku dhimatay waa shuhado waxayna noqon doonaan dad lagu xasuusto dib u xoreynta deegaamadaas marka dhimashada yaan laga baqi awal waad dhiman jirteen dalkana waad xoreyn jirteen xoreeya dalkiina waa idin garab taaganahay وانا إذن قربت تغنى دون نبي الله تعالى إذا سأقول كوبيا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.